Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada warka rasmi radio qodobada aan idinku haynana waxaa ka mid ah xukuumadda ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo yeelatay ra-iisul wasaare ku-xigeen labaad Somaliland oo markii ugu horeysay iyaduna yeelatay diyaarado cusub. Itoobiya oo adeegsanaysa dalalka ay ciidamada ka joogaan Soomaaliya ayaa soo saartay war yaab leh. Qodobadaas iyo qodobo kale oo xiiso leh ayaan idinku haynaa warka rasmi radio. Dowladda Federaalka ee Soomaaliya ayaa yeelatay ra-iisul wasaare ku-xigeenkii labaad kaasi oo maanta u magacaabay ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre. Wareegto ka soo baxday xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa xilkan waxaa loogu magacaabay Cabdisalaan Cabdi Cali oo ahaa wasiirka howlaha guud. Xukuumadda ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa noqotay xukuumaddii ugu horeysay ee yeelata laba ra-iisul wasaare ku-xigeen kadib dowladdii ku-meel gaarka ahayd. Muddaxileedkii hore ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xukuumaddiisii ugu horeysay waxa ay magacowday hal ra-iisul wasaare ku-xigeen, taasi oo meesha ka saartay ra-iisul wasaare ku-xigeenkii labaad ee xukuumadihii ku-meel gaarka ahaa. Magacaabista xilkan ayaa waxaa muddo hortaagnaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Saalax Jaamac iyo xildhibaanada gobollada waqooyi iyagoo u arkayay in la wiiqayo awoodda, iyada oo ugu dambeyn madaxtooyada Soomaaliya ay ku qancisay in uu ra-iisul wasaare ku-xigeenku ka foqo ra-iisul wasaare ku-xigeenka cusub ee lasoo wado. Saalax ayaa maalmo ka hor waxa uu wajahay dagaal siyaasadeed oo lagu dhaafi rabay kursigiisii golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, kaasi oo markii dambe ay soo faragelisay madaxtooyada Soomaaliya oo guddoomiye Cabdi Xaashi lagu qanciyay in Saalax uu u dhaafo kursigiisa. Si kastaba ha ahaatee, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa horey u ballanqaad ugu sameeyay Koonfur Galbeed in loo magacaabayo ra-iisul wasaare ku-xigeen. Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdina maanta waxa uu si rasmi ah u daafuray diyaarado cusub oo Somaliland ay yeelan doonto, Somaliland Airlines. Diyaaradahan oo ah nooca yaryar ayaa waxaa loogu talagalay in lagu tababaro wadayaasha ama bayloodyada diyaaradaha ee dhinaca duulimaadyada ee reer Somaliland. Madaxweynaha Somaliland ayaa waxa uu daafuray diyaaradda Somaliland Airlines oo ay ka wada shaqeyn doonaan khubaro u dhalatay dalka Serbia. Sidoo kalena waxa uu sameeyay duulimaadkii ugu horeeyay ee diyaaraddu ay samayso, taas oo si nabad ah dib ugu soo laabatay garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa. Madaxweynaha Somaliland ayaa halkaasi isaguna ka hadlay. Madaxda hay'adda duulimaadyada ayuu ku bogaadiyay dadaalka ballaaran ee ay sameeyeen iyo sida ay uga midho dhaliyeen riyadii iyo hadafkii Somaliland ay lahayd. Ugu dambeyntii, madaxweyne Muuse Biixi ayaa shahaado sharaf waxa uu guddoonsiiyay dhalinyaro dalka dibaddiisa ku soo baratay cilmiga wadista diyaaradaha iyo khubarada dhinaca ajaanibta ee gacanta ku haya diyaaradaha cusub, kuwaasi oo dhalinyarada bari doona wadista diyaaradaha. Dowladda Itoobiyana waxay abaabushay kulan ay isugu keentay dalalka ciidamada ay ka joogaan Soomaaliya si ay u diidaan wax loogu yeeray isku dayga xalka dhinaca ee Soomaaliya ay waddo ee ku saabsan qaab dhismeedka howlgalka cusub ee beddelaya ciidanka ADMIS. Itoobiya ayaa ku adkeysanaysa inay ka sii mid ahaato howlgalkaasi, iyadoo carabka ay ku adkeysay in ay diyaar u yihiin ka qaybgalka howlgalka cusub ee Soomaaliya. Dalalka TCC oo hogaaminaysa Itoobiya ayaa ku adkeysanaya in ay qayb ka qaataan samaynta howlgalka cusub, iyaga oo ku doodaya in aan la iska indhatirin karin waxqabadka Itoobiya ee dhinaca Soomaaliya. Intii uu kulanku socday ayaa waxaa shirkaasi isugu yimid wasiirada difaaca wadamada ciidamadu ay ka joogaan Soomaaliya. Wasiirka difaaca ee Itoobiya ayaa sheegay in dalkiisa uu aad u doonayo in uu sii wado caawinta Soomaaliya si loo xasiliyo. Wasiiradan ayaa waxa ay soo saareen warmurtiyeed ay si wadajir ah u soo wada saareen, waxaana lagu yiri 17 sano ee lasoo dhaafay waxaanu sameynay howlgalka la dagaalanka argagixisada ee Soomaaliya iyo xasilinta dalka, oo ay qayb weyn ka qaadanaysay horumarinta iyo tayeynta hay'adaha dowliga ah ee dowladda federaalka ee Soomaaliya. Hase yeeshee, si howlgalka cusub uu u guuleysto, wasiiradu waxa ay sheegeen in Midowga Afrika looga fadhiyo in ay dib eegis ku sameeyaan dhaqaalihii ay ku bixin jireen, maadaama ay jirto hoos u dhac dhaqaale oo saameeyay howlgalka ka dhanka ah oo weli ka taliya dhul badan oo ka mid ah Soomaaliya. Marka ay noqoto aasaaska ciidamada cusub ee Midowga Afrika, wasiirada gaashaandhiggu waxa ay ku nuuxnuuxsadeen in casharadii laga bartay ADMIS ay si fiican loo tixgeliyo geedi socodka haray, waxayna ifiyeen baahida loo qabo in laga tashado oo la naqshadeeyo qaabka howlgalka uu noqonayo. Soomaaliya ayaa horey uga soo horjeesatay ka qaybgalka iyo ka mid noqoshada
howlgalka cusub in ay kusoo biirtay dowladda Itoobiya oo Soomaaliya ay hayaan iyada oo ku eedeysay Addis Ababa in ay ku xadgudubtay madax-bannaanida dhuleed iyo qarannimada kadib markii ay heshiis dhinaca badda ah la gashay maamulka Somaliland. Xaaladda ayaa cirka isku shareertay markii Qaahira iyo Muqdisho ay ku heshiiyeen in howlgalka cusub ay ka mid noqonayso Masar, Itoobiyana laga saarayo, taasi oo Itoobiya u muuqatay in khatar cusub ay ku soo socoto. Halka warkaasi aad kala socotaan waa Rasmi Radio. Fadlan daawade haddii aad ku cusub tahay barahayaga bulshada ku soo biir oo ka qayb qaado wararka halkan aan markasta idinku soo gudbino.